maxay yihiin 8 dal ee dumarka isdhaafinaya ma ka naceebba mise waxa ay ka tahay jacayl maxaase keenay in ay qaatiyan ka istaagaan waa yaab dumarkii yaradka laga dhiibi jiray oo rag loo iibinaya maanta waa 8 dal oo qofkii gabar ka guursada lacag iyo deganaansho isugu daraya rumaysa ama ha rumaysan sanadkan 2024 waxaa jira 8 wadan oo ninkii ajnabi ah ee ka guursada gabar siinaya adduun lacageed meel uu dego amaba gurigii uu degi lahaa iyo waliba deganaanshihii wadanka uu ku joogi lahaa taasi oo aakhirka ka dhigi doonta muwaadin waxyaabaha kale ee ninka inanlayaalka ee u soo martiya laga caawinaya waxaa ka mid ah fursado shaqo iyo waliba mid maaliyadeed haddaba intaasi markii aad maqasho waxaa kugu soo dhacaya talow ujeeddada uu ka leeyahay dalkani maxay tahay sideese ku dhici kartaa in gashaantiyihii aan lacagta iyo dahabka aan ku bixin jirnay dowladdu ay mas-uuliyadda oo dhan ay qaado weliba intaa kuma ekee xoolana la igu darayo haayo waa dhacdaaye waa waxaaga wax laguugu dar ee koob dhaka jabiye ah soo shubo gambarna soo jeedo warkana iga koobi adduunka waxaa ka jira dheelitirnaan la'aan dhinaca labada jinsi ah yacni ragga iyo dumarka oo waddamada qaarkood uu raggu gabaabsi uu ku sii yahay dumarkuna ay ku badan yahay dalalkani ma aha kuwa yaqaan in ninku guursado in ka badan hal xaas mana aha meel laga yaqaano waxa loogu yeero polygamy oo ninku uu guursan karo dhowr dumara sidaa daraaddeed xal ayay raadinayaan maadaama ragga looga badan yahay fursadaha shaqada iyo dhaqaalaha markaa kadib ayay albaabada ay u ballaqeen ragga shisheeyaha ah si ay gabdhahooda ay u guursadaan intaa kuma joogsanay si rag badan oo degdeg ah loo helo waxa ay ku yabooheen wax nin kastaa soo jiidan kara taasi oo ah lacag kaash ah oo la siinayo guri la dejinayo iyo weliba ila ganacsi oo loo fududayn doono waxyaabaha ugu horreeya ee ragga shisheeyaha ah lagu soo jiidanayo si quluubtooda loo hanto waa sharciga deganaanshaha dalka oo farta laga saarayo marka ugu horreysa ee uu aroosku uu dhaco 8 ruushka waa dal caan ku ah taariikh waxyaabaha qadiimiga ah ee la kaydiyo iyo weliba sheekooyinka caashaqa ah waxa uu dalku uu leeyahay 83 milyan oo dumar ah halka raggu yahay 73 milyan maadaama ruushka hadda uu ku jiro ciidamo dhis iyo dagaal kuwaasi oo rag u badan dalku waxa uu ka cabsi qabaa in rag la'aani soo food saarto sidaa daraaddeed ninkii dhinaca gabdhaha ka dhisa wax walba waxaa looga dhigayaa bilaash weliba lacag uu goonni isugu taago ayaa la siinayaa waa dal qani ah oo maaliyad fara badan haysta 7 Portugal waxa uu dalkani uu ku suntan yahay furfurnaan jacayl dhaqan iyo fursado dhaqaale noloshu waa mid raqiisa oo haddii aad dukaamaysi aad u baxdo wax yar ayaa kugu baxaya ninka u soo geed fariista gabar boortaqiisa waa la soo dhaweynayaa canshuur dhaaf iyo weliba in dowladda degitaanka reerka cusub dhaqaale ay ku kabto ayaa kuu dheer 6 Armenia waa waddan u dhexeeya Yurub iyo Asia sanadahan dambe waxaa hoos u socday tirada ragga laakiin Armenia waxaa iyada gaar ku ah in dumarku ay fadhiyaan xafiisyada muhiimka ah oo dhan gacanta ugu weyn ay ka geystaan horumarinta dalka tirada haweenka ee sii kordhaya iyo ragga soo yaraanaya darteed dowladdu waxa ay xusulduub ay ugu jirtaa sidii loo heli lahaa rag ajnabi ah oo ka guursada gabdhaha dowladdu waxa ay ku yaboohday taageero dhaqaale iyo mid dib u dejin loogu samaynayo reeraha cusub mar haddii ay gabadhu Armenian tahay 5 Peru dal qurux badan oo ku yaala koonfur Amerika dhinacana ku haya badweynta Pacifica isla markaana gabdhihiisu ay leeyihiin timaha ugu quruxda badan adduunka ee ay gabar yeelato waa 42 inji dhumucda timaha celcelis ahaan iyo in ka badan marka la taabto waxa loo malaynayaa seenta fardaha waa sababta dadka timaha adag ay u soo iibsadaan timo laga soo jaray gabar Peruviana waa arrin adduunka oo dhan caan ka ah hindidu inta badan waa 32 inji aan timahooda dhumuc lahayn amaba xabad lahayn oo go'a gabdhaha sidaa ah ee guud haldhaalayda ah qofkii ajnabi ah ee guursada duca ayaa loogu darayaa kharashka dowladda ayaa qabta ragga ayaa ku yar sidaa daraaddeed in rag dibadda laga keeno si ay u dheelitiraan bulshada waa qorshe weyn oo xukuumaddu ay riixayso 4 Estonia waa waddan ku yaala Yurubta bari waxaa aad ugu batay gabdhihii ragguna waa uu yar yahay sidaa daraaddeed Estonia ayaa go'aansatay in ay siyaasadeeda ay furfurto isla markaana ogolaato soo dejinta ragga shisheeyaha si ay gabdhaha ay u guursadaan waa dal ku fiican daryeelka bulshada sida caafimaadka iyo dhinaca waxbarashada intaba 3 Mexico dalku
waxa uu ku yaallaa dhinaca koonfureed ee qaaradda waqooyiga Ameerika, waddan ka mid ah kuwa kulaalayaasha ah. hadda waxa ay Mexico ay bilowday inay hoos ay ula hadasho ragga ku sii qulqulaya dhinaca xuduudka Mareykanka si ay halkaasi u galaan, inkasta oo laga sii jecel yahay nin aan tahriib ahayn oo diyaarad ku yimid. dumarka ayaa dusha sare ka maray raggii oo tiro batay. raggii in badan oo ka mid ah xabad ayaa leeftay oo dagaalada daroogada ayay ku dhammaadeen. hadda Mexico waxa ay diyaar ay u tahay sidii ay u soo dhoweyn lahayd niman ajnabi ah oo haweenka ka guursada, iyada oo guurka uu la socdo ballanqaadyo hoose oo ninka uu jeclaysanayo. nolosha dalku waa mid jaban oo lacag aad u yar ayaa qofka uu ku noolaan karaa bishii oo dhan. 2. Italy, waddankan oo ku yaalla koonfurta Yurub isla markaana dhinacyada ay kaga wareegsan tahay badda Mediterranean-ka marka laga reebo waqooyiga, waa mid dumarku ay ka badan yihiin ragga. dal taariikhi ah, sheekooyin badan laga soo wariyo oo bulsho furfuran. waa goob kale oo ku wacan ragga caashiqa la golongalay. maxaa wacay dumarkii ayaa ka batay ragga. gobolka Lazio ee dalkani waxa uu si gaar ah ragga u siinayaa ilaa 2,000 oo euro bishii haddii ay gabar ay ka guursadaan. hadda kharashkii arooska iyo aqalgalkiiba isla gobolka ayaa kaa bixiyey ee ogow. 1. halka ugu dambaysa waa waddanka yar ee jasiiradda ah ee Iceland, kuna yaalla waqooyiga fog ee Yurub. dalkan oo markiisii horeba dadku uu ku yaraa ayaa waxaa ku sii yar wiilasha, sidaa daraaddeed dowladda ayaa ogolaatay in gabdhuhu ay la iman karaan nin ajnabi ah meesha uu doonaha ka soo jeeday. dowladdu waxaa kale oo ay intaasi ay raacisay in wiilka mushahar loo qori doono bilaha hore ee reerku uu cusub yahay, kadibna shaqo abuur loo samaynayo. haddaba haddii aad tahay doob amaba aad ahaan lahayd, waddankee doonan lahayd? allaylehe, doob qalanjadii gabay madda lagu khasaaraa. waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee mar walba aad noola socotaan. Bulqaas Media ayaad nagala socotaan. fadlan haddii aad ku cusub tahay page-ka Bulqaas Media, ha ilaawin inaad like iyo follow aadna soo tiraahdo. haddiise aad tahay macmiil soo noqday, sidoo kale ha ilaawin in muuqaalkan aad sheer garayso oo asxaab badan aad la wadaagto si iyaguna asxaabtooda kale ay ula wadaagaan, halkaasina ay wax uga faa'iidaan. wixii tale iyo tusaale ah waxaad noogu soo qori kartaan dhinaca commentiska. aad ayaad u mahadsantihiin. rabbiga ha idinla jiro. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.